بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأمين يوسف أنا وحان كميدا أرديدي دكسيga sare ka soo baxday Dhusmareeb kadibna jaamacadda helay kulliyadda saxaafadda sanadkii 1984 afar sano ayaan ku jiray kulliyaddaasi oo ku taallay Lafoole kadibna waxaa markaas soo qalijibiyay wasaaradda warfaafinta ugu meeleeyay kadibna TV-ga qaranka Soomaaliya ayaa halkaas ka shaqeynaya muddo 2 sano ah ka bacdeen markay dagaalada sokeeye dhaceena waxaa kamid ah dadka qorayaasha wargeysida aad ugu badan magaalada Muqdisho gaar ahaan wargeysi qaran oo aan soo saari jirnay wax badan wadankan laga akhristay sidoo kale wargeyska ayaamaha iyo wargeysyo kale oo fara badan ayaa ka soo shaqeynaya sanadahaasi hashiyay isbeddelka dhinaca tiknoolajiyadda iyo isbeddelka dhinaca horumarka dhinaca saxaafadda ayaa waxay keentay in dadka Soomaaliyeed ay u janjeersadaan dhinaca dhageysiga oo dhinacii oo qoraalkii iyo wax akhrintii ay aad u yaraatay tusaaladan ku siiyo wargeyska qaran oo aan soo saarayna 95 ama 96 10,000 oo koobi markii idaacadda ugu horeyso la keenay wadankan oo FM ah dhowr kuna naga go'day oo soo soconay aakhirkii inuu wargeys iska bixi waayo oo 200 xabo ku soo aruuro marba idaacad ka timaadaba waxba naga go'ay marba idaacad timaado waxba naga go'ay hadda magaalada Muqdisho waxa ka furan ugu yaraan 40 idaacadood ka furan iyo intaas 15 telefishin ah marka dadka Soomaaliyeed waxay noqdeen dad oo wax dhageysta kaliya laakiin akhriska waxyaabaha ugu muhiimsan adduunyada waaye oo ah ma maqlaysid weligaa hadda idaacadaha dhageysata xataa ma maqlaysid ii sheegeen idaacadda ilaa war sheegtay iyo laakiin waxa lagu leeyahay wargeys hebel oo ka soo baxay Mareykanka ama ka soo baxay London ayaa waxa uu qoray xisaas waa si socota baasho social media waxa leedahay yimaadeen social media ii sheegay dad badan ku xirmeen bulshada waa ku xirantay faa'iido khasaaro waa leeyahay marka ii sheegay idaacaddii aan maanta aan lahayn ama wargeyskii aan lahayn social media inuu hore u socon karo ma maleynayo marka muhiim u noqday social media Soomaalida wax badan ay ka faa'iideen marka marxaladahaas ayaa goobjoog u ahaa kadib markaan soo gaaray inaan bulshada rayidka wargeysi soo saarayeen oo soshansa wargeyskaas muddo 4 sano ayaan soo saaraynay isagana xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo soo maray waxa weeyaan magaca la yiraahdo ii sheeg South Central State Actors ay ku tusinaysaa magac weyn inuu yahay waxa weeyaan ii sheeg bulshada rayidka adduunyada markii la fiiriyo waxa weeyaan waxyaabaha dawladda toosin kara dhaliili kara waxana u sheegi kara marka shansi inaan ka mid noqdo muhiim ayay ahayd taariikhda ayay gashay ii sheeg waa waxyaabaha aan ilmaami doonin waayo waxa weeyaan ugu yaraan 95 waxa ka shaqeeya oo daladood oo urura ayaa ka shaqeeya marka ururadaasna waa bartay ii sheeg dad kale magac ku laana waa bartay ii sheeg faa'iido weyn ayaan halkaas ka helay dhinaca kale si dad badan ugu tirsanaayo ururka qorayaasha ayaan ka tirsanaa you